dad badan ayaa waxay raadiyaan saacadada nolosha ama waxa loo yaqaano afka qalaad happiness haddaba sirtu waxa ay ku jirtaa oo la ogaaday in aad seexato habeenkii 7 saacadood iyo xogaa daqiiqada ah ra'yi ururin cusub oo la sameeyay ayaa lagu ogaaday in dadka saciidka ah ee noloshooda ku faraxsan ay seexdaan 7 saacadood iyo 6 daqiiqo iyadoo hoos laga xariiqayo in farxadda iyo hurdada uu xiriir toos ah ka dhaxeeyo ra'yi ururintan dadka ka qayb galay sheegay in noloshooda ay haystaan farxadda joogto ah ayaa tilmaamay in ay maalintii seexdaan 7 saacadood halka kuwa kalena ay iyagu sheegeen in ay haystaan farxad caadi ah ay tilmaameen in ay iyaguna jiiftaan 6 saacadood iyo 54 daqiiqo sida lagu sheegay cilmi baaristan oo ay ka qayb qaateen ilaa 2,000 oo qof warbixinta cilmi baaristan ayaa lagu sheegay in dadka seexda in ka yar 6 saacadood iyo 48 daqiiqo ay yihiin dad aan faraxsaneen oo walwal badani uu noloshooda haysto heerka ugu sarreysa ee hurdada qof lagu baahan yahay inuu seexdo ayaa ah 7 saacadood sida ay sheegayso hay'adda caafimaadka wadaniga ah ee NHS laakiin in 6 daqiiqo aad ku darsato ayaa lagu sheegay inay tahay arrin wanaagsan waxa xusid mudan in aad seexato muddo aad u badan aanay lahayn faa'iido fara badan oo caafimaad marka aad waqti dambe habeenkii aad faraashka aad ama aad dambe aad seexato si caafimaadkaaga u wanaagsado waa inaad seexato habeenkii waqti fiican arrintaasi waxa ay ku keenaysaa in aad noloshaada guulo badan ka gaarto caafimaadkaagana uu wanaagsanaado